bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowow janalka waxgarad fadlan haddaad nagu cusub tahay janalka subscribe dheh maanta waxaa idiin hayaa barnaamijkeena qosolo haquusan qaybtiisa afaraad daawasho wacan hadda ka hor waxaa leen reer baadiya dameer ka soo fakaday markaas dameerka suu u raadinaya markii dambe wuxuu yimaaday magaalada markuu yimid wuxuu waayay cid ku marti qaada camal markaas maalin dambe waxaa la geeyay hoteelka qolka markii la soo geliyay wuxuu arkay sariirtii oo guglan iyo qolka quruxdiisa uu isku quuri waayay sariirtan saa u labisan inuu seexdo iyo asaga dharku wato wuxuu go'aansaday sariirta hoosteeda inuu seexdo ilbaabka furan uu ka seexday isla hoteelka isla qolkii haddana ninkii mulkiilaha hoteelka wuxuu soo dejiyay wiil gabar iswato maadaama loo maleeyay inuu ninkii baxay sababtoo ah sariirtan cid ma jiifto ilbaabkana iska furan yahay inuu baxaa loo haystay qolka waxaa la soo dejiyay wiil gabar markaas habeenkii markii la gaaray sheekadoodii iska bilaabay shukaansiga markaas wiilkii wuxuu dhahay macaanay markaa ku arko adduunyada dhan la hor keenaa jaceelkaaga camal xariifkii baadiyaha hadalkuu maqlay sariirta hoosteeda intuu ka soo baxay uu dhahay walaalow haddii adduunyada dhan lagu hor keeno dameerkayga meel igu sheeg camal sheekadan dhegeysta hadda ka hor waxaa la dhahay ninbaa hadda ka hor waxaa lagu yidhi rag dagaalamayo fiirsanaya inta loo imaada waxaa la dhahay waraa maxaad u kala celin weysay dadka labadan meesha maxaad meesha kaga taagneed oo dadka u kala celin weysay camal intuu ninkii xanaaqo oo indhaha guduteen uu soo boodo uu dheeno haddaa ogaan laheedeen isku dirkooda dhibkaa ka mara kala dhici maaday dhihi lahayn camal ninkaasaa way xanaaqsan buu sheekadan dhegeysta hadda ka hor waxaa la dhahay nin reer baadiya masaajid soo galay sheekh oo wacdinayo sheekha marka wuxuu ka sheekeynaya dagaalka oo Uxud nabiga markii oo dhaawacadii soo gaarayeen iyo dhibka loo geystay sallallahu alayhi wasallam markaasa ninkiina markuu ka sheekeynayay sheekada soo wada dadku u qiiranayeen markii dambe ninkii reer baadiyaha soo booday sheekh oo wacdinayo oo dharbaaxsho maxaa ka gal waji uu qabtano markii la weydiiyay war maxaa uu dhufatay intuu ku xanaaq kumalo war hadda uu ka sheekeynaya uu ogaay muxuu uga celin waayay nabiga dadka saas uu galay no wallahi Soomaalida horta jaahiliina bay iska ahaadaan laakiin dhaqankeena diinta maasha Allah sheekadan dhageysta waxaa la dhahay qolaa waxaa wada degnaayeen laba ilmood iyo ayadood qolkana TV u yaalay markaas ilmaha maalin kasta film iska fiirsan jireen maamadana waayeeshan xagaas oo kaliya iskaga tasbiixsan jirtay saliya u yaalay markaas maalin kasta waxay aragtaa maamada atoorihii oo toorey iyo mindi iyo xabaday lagu dhufanayo markaas maalin dambe intuu imaatay wuxuu ku dhahday maandhow ninkan kiishal dhinto Soomaha camal ilmiha waxay dhaheen ayeeyo atooro ma dhinto markaas intii yaabtay dhahday war maandhow warkaas ma jira iga soo hubiyo camal bis ilmihi maalin dambe u imaadeen ayeeyo anaga runteen waa camal la soo hubinay atooro ma dhinto markaas intii yaabtay dhahday oo maxaad mar hore ii sheegi weysaan camal markaa daalay intii sijaadii ka kacday istaagtay gacmaha kor u taagtay saan dhahay ilaahay oo cimrigayga cimri atooro ka dhig no waayeeshii khaldan wallahi intaas ayaan maanta idin soo bandhigay share like subscribe ni aliloobin aad u mahadsantiin